waxaan kaloo iyana si gaar ah u salaamayaa saaxiibadeenna saacadan inala soo jeeda ee Turkey mas'uuliyiinta halkan u fadhida safaaradda ka socota iyo hay'adda tag walaalayaal xilli dambeeyna joognaa min bayna joognaa hadal intii la oran lahaa waa la yiri 3-4 qodob ayaan dul istaagay ugu horeyn waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo gudoomiye Umar Maxamed Umar Finish oo intii aan xukuumadii hore ku jiray oo dastuurka ka shaqeynay arrimaha bulshada aanu si dhow wada shaqeynay run ahaantii gudoomiyuun ma ahayne oday Soomaaliyeed buu ahaa isaga oo qadiyadaha iyo arrimaha gobolkan uu mudan yahay madal walba u taaganna waanu soo joogay waxa qabadkiisina maanta halkan uu inaga soo bandhigay taariikhduna way xusu doontaa waxaanu jeclaan lahayn dhamaanteen markaynu mahad celinno adeega uu fidiyay magaalada madaxda iyo gobolka Banaadir inta ka sokow dabcan gudoomiye Yusuf Hussein Jimcaale Madaale oo aan ku cusbayn xilkan soo dhaweyn iyo duco inaga muday in loogu duceeyo xilka culus halkan waxaan u maleynayaa malaaq uu ahaaye ninka xamar loo dhiibay iyo Banaadir waxba kama dhaconin dalka maamul la yiri oo dhowr siyoodba magaala madaxdu waa meesha kaliya caawa hadii dadka halkan fadhiya la eego dad reer Muqdisho uma badnee 18 gobol dalka dadkii ka soo jeeday baa jooga wax garadkii baa jooga baac mushtarigii baa joogta culimadii baa joogta saraakiishii baa joogta marka fursad aanu meeyar magaalo kale helin ayuu haystaa qofka halkan meeyarkii muunad Soomaaliya muunada ayuu ka shaqeynaa marka gudoomiyuhu waa kii shirabka inoogu tuuray horta shirabka waa fahma inaan tiriyuunba wax yar iga hadhay waxaan soo xasuustay 1970yadii goor aan u maleynaya ama 80yadii ayaa aboonkii weynaa Allah u naxariistay Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo dhawaan u geeriyooday ayaa xamar buu gabay u mariyay marka gabayga waxa la yiraahdaa xamar ee nabadba waxa kamid ahayd midhaha xuduntii dalkayga ay xaruntii dadkayga ay xamar ee nabadba xidigtii bahdeedii iyo xubnaheeda kala maqan u ahayd xasuustee sumadooda xaynkii iyo shanta gees ku xidhatay xamar ee nabadba laamaha xorriyadii iyo xayndaabka calankee xijinaya dhalashada xididkay ka beermaan xinjir laga waraabshay waa 70yadii wuxuu ku dhashay abwaanku cirifka magaalada Burco Buuhoodle iyo inta u dhaxaysa baan u maleynayaa Burco gobolka Togdheer laakiin dhadhan iyo astaan gaar ah xamar u lahayd waayo badan bay xamar soo martay daartan kaliya ka turjumaysa taariikhaha la soo maray xilliyo ay ajaanib ka talinayeen xilliyo dimuqraadi lagu dhaqayay xilliyo nidaam military ay ku hoos noolayd xilliyo colaad sokeeye la galay iyo caawa aynu halkan joogno oo ay intaas soo meeyaro iyo gudoomiyaal isu soo dhiibayeen xilalka waxa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa inay soo hagaagayso xaaladda dalku oo mas'uulka ka dambeeya wixii uu dhisay wax ku sii dhisi doono dhowr 20 kalaami ee uu dhameeyay gudoomiye Umar waxaan u maleynayaa 40 baa laga rabaa gudoomiyaha hadda xilka qabtana waxaan rabaa inaan dul istaago bal dawladda federaalka oo ay magaaladan xamar iyo gobolkan uu martigeliyo oo ku shaqeysa aragtida ay ka qabto siyaasadda guud ee dalka oo saameynaysa maamulka halkan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu halbeeg ka dhigay ama oraahda uu doorashada ku soo galay waxay ahayd Soomaali heshiisa dunidana heshiis la wuxuu kaloo ahmiyad siiyay visionkiisa la dagaalanka argagixisada iyo in laga xoreeyo deegaanada Soomaaliyeed cadawga gacanta ku haya wuxuu kaloo isna xusay in la helo isku filnaansho dhaqaale iyo dib u heshiisiin dhaba
horta intaasoo dhan meesha la rabo awalan in laga fuliyaa waa magaalo madaxda oo muunad u noqonaysa inta kale waxaan hubaa hoggaanka cusub ee qabsaday inuu ku sheegan yahay dadaal oo madaalaba la yiraahdo waxaan u maleynayaa halbeegyada inuu wax badan ka dhalin doono xukuumadda barnaamijka ay geysay baarlamaanka dan qaranna waxay u bedeshay barnaamijyo aragtida madaxweynuhu uu lahaa waxa la rabaa markaa magaaladan muqdisho amnigeedana in kaamil laga dhigo ka deegaanada ku hareeraysanna la sugo waa ogtiin dalka guud ahaan dib u xoreyn ba ka socota abaaraha ka jira colaad ba meelo badan ka jirta waxa muhiim ah halkan oo maanta aynu xil ku kala wareejinayno oo lagu dabaaldegayo sida gudoomiyaha uu xusay dalkan dad badan oo walaalaheena ayaa magaalada cidhifiyadeeda iyo inta ka shisheysaba caawa ku baahan oo abaar ba ka jirta waxa laga dhawaajiyay magaalada muqdisho inay ugu dad badan tahay ugu hanti badan tahay hantida iyo cududa in dadka Soomaaliyeed ee baahan looga faa'iideeyo la rabaa gudida abaaraha ee xukuumaddu ay samaysay ee culimada ay ku jirto ee ganacsatada ay ku jirto waxa la rabaa bulshooyinka gobolkan ku dhaqanaya guud ahaan dadka Soomaaliyeedba inay la shaqeeyaan oo la gaaro dadka inta aanay xaaladoodu ka adkaantay hadda ku jiraan gudoomiye waxaan leeyahay wasiir Axmed Fiqi iyo mas'uuliyiin kale oo gudida ku jirta halkan fadhida waxaan rabaa arintaana inaan xaq iska ridno umada aanu gaarsiino dadka hal loo gurmado haddii Sweden iyo Faransiis iyo ajaanib ay u soo gurmanayso adigoo walaalkaana waad u gurman kartaa lama heli karo in suuqyada magaalooyinka waaweyn ay camirnaadaan magaalada cidhifiyadeeda iyo miyigana dadka ay ku laanayaan labada isku heli karno hadhowna ma oran karno Soomaali baan nahay oo dadka ugu mudannahay arintaasina waa iga dhambaal aan dadka u dirayo gobolka Banaadir wasiirka ka dhawaajiyay xuquuq buu leeyahay matalaad inuu helo ayuu baahan yahay qodobka dastuurigaana in la soo idlayo dibageysa dastuurka lagu sugo maqaamka magaalada Muqdisho waa laga maarmaan oo su'aalaha waaweyn ee in laga jawaabo ay ka mid tahay xagga dastuurka tan labaad gobolkani adeeg badan buu bixiyaa waxaan qirayaa anigu dawladda horena waan ku jiray haddii aad maqashaan barnaamijka diin cafinta haddii aad maqashaan dhaqaalihii baa kobcay waa cashuurta gobolka Banaadir laga qaado taas ayaa lagu kabi jiray dhaqaalaha iyo shuruudaha dalkan lagu xidho laakiin waxa la yiri nimca waliba nusqaan leh mar haddii dawladda federaalka aad marti gelinaysaan waxa laga yaabaa xagga cashuurta iyo hawshuna inay ku dhacdo dadka laakiin waa privilege ama sharaf ay magaaladan kaliya haysato inay dawladdi marti geliso xagga dawladuna indha naxariis leh bay ku eegi doontaa arrimaha adeega mar dhaweed baan gudoomiyaha wareysanayay 30,000 oo arday baa ka baxay iskuulaadka sanadkii hore 30,000 baa ka baxay sanadkii ku horeyna 30,000 baa ka baxay intaasba shaqo abuur bay rabaan dadaal bay rabaan dawladda federaalku dadka ku dhaqan gobolka Banaadir inay helaan adeegyo si weyn bay ula shaqeyn doontaa arrimaha infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalahana waxba laga qaban doonaa guul baan u rajaynayaa gudoomiyaha insha Allah ta'ala iyo gobonnimo dadkuna inay si kaliya laaba ula shaqeeyaan ayaa dhamaantiin kula dardaaranay insha Allah ta'ala khayr baynu rajaynaynaa inuu kala kulano aad u mahadsan yahay